Dowladda Mareykanka ayaa soo saartay warbixin saadaal leh oo ku aadan duqeymaha ay Soomaaliya ka fulisay sanadii hore ee 2020 iyo khasaaraha ka dhashay weeraradaas dhanka cirka ah oo loogu beegsaday kooxda Al-Shabaab. Taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa shaaca ka qaaday in 2020 aynu kasoo gudubnay ay gudaha Soomaaliya ka geysteen ilaa 15 duqeymood oo dhammaan lagu weeraray Al-Shabaab. AFRICOM ayaa sidoo kale sheegtay in weeraradaasi lagu taageerayay ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ee haatan howlgallada culus ka wada gobollada dalka. Sida warbixintan lagu sheegay, waxaa duqeymahaasi lagu laayay ilaa 100 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab xilli ay abaabulayeen in ay qaadaan weeraro halis ah. Sidoo kale waxa uu Mareykanka meesha ka saaray in duqeymahaas ay wax khasaare ah ka soo gaareen dadka rayidka ah ee ku dhaqan deegaanada la duqeeyay. Tirada duqeymaha uu Mareykanka fuliyay sanadii dhamaatay ayaa ka badan intii sanadkii hore 2021, markaas oo dalka ka fuliyay 11 duqeymood oo dhanka hawada ah. Wuxuu sidoo kale sanadkii ka sii horreeyay ee 2020 uu fuliyay 45 weerar, halka 2019 uu Soomaaliya ka geystay 59 duqeyn sida ku cad warbixinta ka soo baxday taliska. Mareykanka ayaa ka mid ah dalalka waaweyn ee sida tooska ah uga qayb qaata howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, wuxuuna sidoo kale tababar siiyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee Kumaandooska Danab. Weeraradan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamiga ah ee kordhisay dagaalka Shabaab looga saarayo dalka oo dhan.